ayadoo xilli roobadyadu guga foodayna ugu soo hayaanaya waxa magaalada Sheekh gobolka Saaxil ay la daaladhacaysa qashin buux dhaafiyay sharciyada waaweyn ee magaaladaasi taasoo ah mid ay moogay yihiin isla markaana ay ka maqan yihiin maamulkii dawladda hoose ee degmada iyo xukuumadda Soomaaliland haddaba maruu TV-ga caalamiga ee Kalsan uu booqday goobahaas ayaa waxaanu ku arkaynay muuqaalada hadda idin muuqdo oo qaar aad uga liita dhinaca caafimaadka dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ayaa qayladhaan waxay u direen maamulka dawladda hoose ee degmada iyo guud ahaanba wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyagoo u sheegay in wasaaraddu ay sida ugu dhaqsaha badan u soo farageliso taasoo ay sheegeen in xilli roobadyadii guga ay foodayna ugu soo hayaan isla markaana ay ka dhalan karaan xaalado caafimaad darro oo ku baaha guud ahaanba Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tani dhinac walba guryaha kaga hareeraysan meel walba maati baa joogta meel walba maati baa fadhida meel walba maati baa ku ciyaaraysa haddana waa magaalada gudaheedii seesas baa ku hareeraysan guryaha dhinac walba ka xiga ciyaalkii baa jooga haddana waa la arkayaa waxa xashiish yaalla caafimaad darraa ka dhalan karta xanuunaa ka dhalan kara roobabkii guga way curanayaan dawladda hoose waxa ay qorsho ay u diyaarisay oo ka hortaga ma jirto laga hortagi waayo oo laga tashan waayo oo hoos loo eegi waayo arrimaha xaalad caafimaad ayaa ku soo food leh waayo dadkula haddii gacmo wada jir bay wax u gooyaan haddii laga tashan waayo oo mid laga noqon waayo oo meel looga soo wada joodi waayo taloo kale beriya saakideedba nin walba halkiisa godkiisa nin walba biyo ugu geli oo nin walba godkiisa ku taaban doontaa biyuhu oo nin walba halkiisa dee ay noqon doontaa ilay ku taabato marka wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin wada tashiga isu imaatika ka tashiga aayaha ummadda waayo dhakhtarkii wuu jiraa dhinac walba xashiish baa ka xiga maamul golo deegaan ahaan sariibadii xoolaha lagu qalayay ee nafafka nool lagu qalayay haddii aragtaan ilaahay baa cajaayib ku keenaya waayo wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin caafimaadku intuu cudurku ku jiraa buu caafimaadku ku jiraa wax lagu weydiinayo iyo wax lagaala tashanayo iyo wax midnaba ma jirto oo waagi bariyaba wiig kasta waan guraa waxaan ku dhanaga ciyaalkayga oo la nadaafadeed baan ku qaadnaa waxa weeyaan waa arkaysaana waa kasaa imka u buuxsamay haddana maalin dhaweyto ilaa halkaa arkaysaana idinka dambaysay imka buuxsantay iyo ilaa halkaa iga dambaysay ee madmadowga leh intaa ka dhaxla wiigii dhaweyto waan wada guro waan gubay waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee naga haysataa waxa weeyaan saxa xumo waxa weeyaan imkana waa xilligii dee roobabkaaba dee soo dhowdhow waxaan ku dhigay dee daaya xafaayad hodheeladii usagii way ku shubayaan oo tanoo sii daran oo qoyaankii iyo duqsigii wixii bawda haya waxa weeyaan dee xaafadaha oo dhan anigaba maahe way idinkaa wada arkaayo guryuhu waxaan ku dabadii kaga wada jiraan xaafadda dhexdeedii weeyaan waxa weeyaan xashiishkan wuxuu nagu hayaa aad iyo aad dhibaato aad u badan waxa weeyaan annaga golo deegaanba waxba nooga qaban maanyar magaalaan waxba nooga qaban dawlad hoosaan waxba nooga qaban waad arkaysaa gurigayga waagii baryaba cashuur baa laga qaada dee waxa weeyaan cashuurta waxa looga qaadaa ayaa loo bixiyaa waxa weeyaan dee in guri meel fiican la helo oo dee hoy wanaagsan iyo nadaafad wanaagsan waa in la helaa dee marka cashuurta guryaha laga qaado waxaan ku meelaha dee ama dhulba ha ahaato ama dee maxay to guriba ha ahaatee nolosha caafimaadka dee deegaanka waa inuu helaa caafimaad sugan oo dee saxa wanaagsan waxa weeyaan annagu iminka halkaa wallaahi waxaan ku dhibaato aad u fara badan baa naga haysata marka waxaanu codsanaynaa aad iyo aad u codsanaynaa waxaan ku mid madaxweyne iyo mid maayara iyo mid kastaba aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa in kudaafadana laga hagaajiyo in maxay hayto waxaan ku mid kudaafadana laga nadiifiyo oo dee waa magaalada dhexdeedii waxna looga qabto oo waxa weeyaan imka biyaha yar halkaa qulqulay imka liisha ay raacaya amaba halkaa imka lagu shubaayo xashiishka badankiisa dooxa yar ku yaala waxa weeyaan waa biyihii caafimaadka magaalada uga soo baxayay ee matoorada soo saarayeen dooxi bay ku dhacayaan xashiishkan biyaha ka tagay ee imka halkaa mara xashiishka lagu daadinayo kudaafadii buu qaadayaa daadkii waxa weeyaan ceelkii laga cabaayay waxa magaalada ku cabaysay buu ku dhacayaa waxa weeyaan cudurrada iyo xanuunada badan inta wax laga qaadaya waxa weeyaan nadaafad darrada naga taagan ee magaalada ka taagan qashinka golayaasha deegaan hadaad maqasho golo deegaan waxa loo dirtay inay magaalada nadiifiyaan iyo magaalada dee ma garanaysaa wax ka qabtaan dee qashinkii waa kasaa u yaala runtu waxay tahay maayarku inuu wasiir hankiisu malaa dee hadduu doonayo waxaan u malaynayaa dee inuu doontay laakiin deegaankiiba dayacane qof wax qabtaa la doortaa dee oo meel kale la geeyaa
geesta kale mar aanu isku daynayna wax ka weydiino mas-uuliyiinta dowladda hoose ee lagu eedaynayo indhaha iyo dhagaaba ka furaysteen qayladhaantan ay shacabku u soo jeedinaya waxa aanu booqanay xarumihii dowladda hoose oo gebi ahaanba albaabadu u xidhan yihiin waa maxamed cali axmed maxamed kaabe Kalson TV magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil.